السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي musiibooyinka qoom ku dhaca qoom kale faa'iido ay u tahay iminka hadda xaaladda bini'aadamka ku jira afka qalaad lagu dhaho quarantine ama guri joogistu waxay ka sabtay shirkadooyin aad u badan inay kacaan haddayna kacin khasaarooyin aad u badan ay gelisay hay'adda caafimaadka dunidu waxay ku qiimeysay aakhirka sanadka 2020 in dad gaaraya 25 milyan oo qof shaqo la'aan ku dhici doonto taasina waa mid ka badan dhaqaale xumada ku dhacay dunida 2018 laakiin shirkadu ma maahatay khasaartay oo imka hadda waxa jira shirkadooyin situationkan ama xaaladan bini'aadamka hadda ku jiro ka sameeyay bilaayin dollar waxa suurtagal ah inaad istiraadid oo shirkadooyinka dawooyinka soo saara kuwa soo saara cuntooyinka iyo wixii lamida balse ma shirkadda la dhaho Netflix ma ogtahay shirkadda Netflix in qalad uu sameeyay ninkii aasaasay sababteed loogu aasaasay sanadii markay 1993 yar ayaa jeclaystay inuu soo kireysto cajalad si uu daawado film wuxuu tagay farax ka mid ah shirkadda la dhaho Blue Hosting waxay shirkadda xagga filmaanta iyo karinteeda waqtigaas ugu horeysay film la dhaho Apollo 13 ayuu jeclaystay inuu daawado waa soo kireysay muddo kadib yarkii wuxuu la soo habsaamay inuu soo celiyo cajaladii shirkaddii ku kireysay ahayd Blue Hosting waxay ku qasabtay inuu bixiyo $40 oo ganaaxa yarkii $40 uu bixiyay ayaa waxay ka sabtay in shirkad weyn ay baabado shirkad kalena ay dhalato yarka magaciisa waxa la dhahaa Red Hastings waa ninkii aasaasay Netflix subhanallah u fiirso Red $40 uu bixiyay ayaa waxay ka sabtay in shirkad weyn ay baabado shirkad kale ay dhalato taasoo aasi doonto shirkadii hore bedeli doontana booskeeda Mareykanka kaliya dadka Netflix isticmaala waxay ka badan yihiin dadka YouTube ka isticmaala dadka Amazon isticmaala iyo dadka TV-ga isticmaala ama TV-ga daawada oo la isku daray Netflix inta isticmaala ka badan hadda Mareykanka kaliya dunida maxaad u malayn Netflix waxay ku guuleysatay jaa'isadooyin aad u badan caalamaha marka loo eego imka dir filimka la dhaho The House of Cards filimkaas oo kaliya wuxuu ku guuleysaday 9 jaa'isado qiimo ahaan Netflix waxa kaga baxay $30 milyan balse ma ahayn filimkii ugu qiimo badnaa Netflix kharash ahaan filimkii ugu qiimo badnaa waxa la dhahaa The Crown filimka qiimo ahaan waxa kaga baxay $130 milyan Mareykanka ah information Netflix u kaysan hadii aan xogaan deegaar sheego Netflix data ahaan ama information ahaan ama xog ahaan waxa u kaydsan in lagu qadaro 1.5 terabyte hadda gigabyte ma terabyte ma waa terabyte hadii aan si kala tan idinku sheego 1 milyan iyo 500,000 gigabyte oo data ama xoga ayaa u kaydsan Netflix arrinka kale la badan waxa weeye shirkadda Netflix sanado kadib markii la aasaasay ayaa shirkadda Blue Hole oo shirkadda aan idin sheegay ee ahayd sagaashamaadkii shirkadda xagga filmaadka iyo karinteedaba suuqaas u haysatay bay ahayd sanado kadib markii la aasaasay Netflix waxa ay u bandhigtay shirkadda Blue Hole inay gebi ahaanba iibsato hase ahaatee shirkadda Blue Hole waa ay diiday go'aanka ay ku qaadatay 10 sano kadib Blue Hole waxa ay sheegtay in waxaan afka qalaad lagu dhaho bankrupt amba hadaynu af Soomaaliyeeno waa ay kacday gebi ahaanba subhanallah labada shirkado arrinka dhex maray waxa uu egtahay shirkadda Yahoo iyo Google arrin isagana dhex maray Google labadii markii la aasaasay sanado kadib shirkadda Yahoo oo ahayd shirkadii sagaashamaadkii 2000 ugu horeysay xagga searching shirkadda u haysatay ayaa intay u tagtay waxay tiri aniga gebi ahaanba iibso hase ahaatee shirkadda Yahoo waa ay diiday dhowr sano kadib Yahoo way kacday Google ayaa booskeeda la bedelay subhanallah Netflix caalam ahaan waa shirkadda 97 xagga qiimaheedu wuxuu gaaraa $41 bilyan waana kunka shirkadooda xagga bayca ama xagga iibinta ugu horeysa weeye waana kunka shirkadooda ugu fiican in laga shaqeeyo imka hadda situation kan bini'aadamka ku jira xaaladdan ugu jiro shirkadooyin badan aad bay u qasaareen yani lacag badan ay qasaareen halka shirkadda Netflix 8% qiimaheedii hadda 8% way ay kor u kacday $40 oo ganaaxa oo la bixiyay ayaa waxay ka sabtay in $49 bilyan shirkad qiimaheedu ah inay dhalato